السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال halkani waa telefishinka qaranka ee Jamhuuriyadda Somaliland oo idin ka imanaya wadanka Mareykanka. Ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee dhacda koob kaasi oo kaga hadli doono arrimo badan oo dhinacyo badan taabanaya. Waaga arrimaha bulshada ee Somaliland ayaan ku horeynaynaa haweenka Somaliland iyo haweenka caalamka waxa lagu tilmaamaa in ay yihiin hadda aqlabiyada kor u dhaafaysa boqolkiiba 50. haddaba xaaladda haweenweynaha Somaliland waa sidee kaalin intee leeg ayayna mujtamaca kaga jiraan mustaqbalkooda siyaasadeed waa sidee su'aalahaasi waxa aan u bandhigay marwada koowaad ee Jamhuuriyadda Somaliland marwo Aamine Waris Sheekh Maxamed Jirde oo hadda telefoonka magaalada Hargeysa si toos ah ugu jirta marwo ku soo dhaw barnaamijka dhacda koob aad baan ugu mahadsan tahay fursadda su'aasha ugu horeysa ee ku weydiinaya waxay tahay guud ahaan xaaladda haweenweynaha Jamhuuriyadda Somaliland waa sidee kaalinta mujtamaca kaga jiraana intee ay leegtahay. bismillaahi raxmaani raxiim. horta aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa inaad anigoo Hargeysa jooga ila soo xiriirda oo aad wax iga weydiiso su'aalo muhiim ah oo ku saabsan bulshadeena khusuusan dhinaca haweenka iyo halka ay kaga jiraan kaalinta dalka. haddaan usoo noqdo su-aashaydii bulshada reer Somaliland haweenku waxay ka mid yihiin haddaanay kala badhahayn korbay u dhaafeen kala bad. taariikhda Somalilandna markaad eegto waxay halgankii hore tahay ee aynu dalkeena dib ugula soo noqonayno xorriyadeena iyo hadday tahay halgankii dambe ee dibudhiska dalka Somalilandba waxaan qabaa haweenku door aada iyo aada u muhiim ah oo u qiimo bay ka qaateen. haweenku inta badan iyaga maamulka guriga iyo caruurta korintooda iyo shaqada guriga ku saabsan mooyaane had iyo jeer iyagaa baxa. iyaga hadday nabadda tahay soo dabaalideeda markii dalkeena aynu kusoo noqonay ee dagaalada sokeeye dhaceen, hadday tahay la dagaalanka musuqmaasuqa, hadday tahay dimuqraadiyadda horumarinteeda, hadday tahay horumarka dalka, mid walba qeyb libaax bay ka qaateen haweenku oo waa taariikh la ogyahay. haddii aynu dib ugu noqono burburkii dalkeena soo gaadhay haweenku aada iyo aada bay uga qeyb qaateen oo wixii ururinayay heeraha, wixii biilinayay, wixii bulshada disideeda ka qeyb galayay haweenku qeyb libaax bay ku lahayd. iminka haddaan waktigan xaadirkaynu joogno wasiiray leeyihiin, baarlamaankay ka tirsan yihiin, agaasimayaal bay leeyihiin, komishinada qarankay ka tirsan yihiin. waa wax lagu faano, laakiin anigu waxaan qabaa weli qeybtii dumarku iyo wixii ay kari lahaayeen iyo inaan aada looga faa'iideysan qiimihii ay yeelan kari lahaayeen. waxaan had iyo jeer ku guubaabinaynaa siyaasiyiinta xagaaha Somaliland inay dumarka qeybtooda siiyaan, inay fahmaan dumarku inay waxqabadkoodu haddaanu la mid ahayn ka wanaagsan yahay ka ragga. waxaanu had iyo jeer ku wacyigelinaa inay la tijaabiyo dumarka oo hablaha marka wasaarad ama hay-ad ama meel loo dhiibo had iyo jeer inay aada iyo aada uga soo baxaan hawshaas oo aanu isku labin sidai guriga iyo hawshiisaba uga soo baxaan. markasoo wada duuduubo haweenku meel bulsho meel qaaliya bay kaga jiraan bulshada. marwo hadda waxaa jira waxbarashada gabdhuhu aad bay u soo kordhaysaa oo waxaa jira gabdho fara badan oo jaamacadaha ka qalin jabinaya. ma jiraan fursado shaqo oo iyaga u bannaan gaar ahaan xafiisyada dowladda? runtii siday tahay hablo badan baa sidaas sheegtay tacliinteedu iminka wanaagsan tahay oo jaamacadaha ka qalin jabiye, ama qaar badan baaba hamadooda tahay inay higher educationka galaan jaamacadaha ka baxaan. shaqo helidda iyo helid la-aantu dumarka uma khaas aha ee waxay kala mid yihiin bulshada inteeda kale. midgooda wiilasha ahayd jaamacadaha ka baxa wixii ay helaan unbay iyaguna ka mid yihiin. weli heer aynu gaadino positive discrimination waxaa la yidhahda ama haloo bursiimo hablaha hala siiyo weli maynu gaadhin. dalkeena waad ka warqabtaayo waa dal dhaqaalihiisu yar yahay, waa dal aan raafaysan, waa dal laakiin dadaal badan bulshada iyo dhalinyarada iyo mustaqbalka dalka ugu jira. waxaynu maanta dawladda cusub ee 2 sanadood iyo bisha jirtay ahmiyadeedu waxa weeye inay dhalinyarada shaqo abuur u samayso,
intii maanta ay jirtay dawladdaasi ugu yaraan 3,500 oo arday dhalinyaro arday nabada dhalinyaro ah ayaa la shaqo geliyay laakiin de kama gaadho in yarna kama gaadho inta dhalinyarada shaqada u baahan tahay marka habluhu guud ahaan waxay ka mid yihiin shaqada ee dhalinyarada loo raadinayo way jiraan qaar badan oo shaqo helay intii dawladani matlan jirtay kuma filla dadaalin baa loogu jiraa waxaananu ku rajo weynahay markay habluhu tacliintooda sii korodhaba opportunitieskooda ama fursadahay helayaan inay shaqo ama dawlad ha ahaato ama ha ahaato business communityga inay shaqooyin helaan baanu ku rajo weynahay. haddii aan dhinac kale kaa weydiiyo marow aamina waxaa jira dadaal aad adigu shaksi ahaan ugu jirto sidii kor loogu qaadi lahaa xaaladda nololeed ee dadka danyarta iyo agoomaha arrinkaasi halku kuu maraya? alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay mahadi ha ka gaadhee madaxtooyada markii u horeysay waxaa laga sameeyey xafiiska samafalka madaxtooyada xafiis la yidhaahdo xafiiskaasi waxa weeye xafiis coordinate gareeya ama ururiya ama ka taliya caawimooyinka dibadda amaha laga keena ama gudaha laga ururiyo ee danyarka iyo agoomaha loogu talagalay xafiiskaasi labadaas sanadood uu jiray hawl aada iyo aada u fara badan buu qabtay haddaan usoo noqdo arrinta agoomaha daryeelkooda iyo korintooda iyo wanaajintooda kor bay u kacday aniguna dad qof un baan ka ahay inta guud ahaan xagta laakiin dad aada iyo aada u tababaran oo usoo dadaalay oo halgan ugu jira u naftooda u qoray arrintii agoomaha ka shaqeeya mathalan xarun agoomaha oo waagii dawladdiisa bari jiri jirtay inta hargeysa jirta si baanu u habeynay waxaa shaqada laga qabtay waa shaqo aada iyo aada u fiican waxaanu u dhisnay meelo carruurta yaryare shantirka ka yar u khaasa waxaanu dhisnay meel hablaha u khaasa shaqooyin baanu u raadinaa inamada waaweynaade ama jaamacada ka baxaan ama farsamaha bartaan waxaanu qur-aankaa loogu dhigaa iskuullada caadigay tagaan marka aada iyo aada ayay u fiican tahay unfortunately dalkoo dhan agoomuhu gobol waliba ma laha iminka burco mid baanu wadnaa in loo sameeyo oo fundraising fara badan loo wadaa waxaa jirta meel gabiile ah oo agoomaha iyaduna ah oo shacbiga reer gabiile iyo ummadda reer somaliland wixii taa kula tari karaaba ay taraan doorama meel baa ah insha allahu bismillahi kariim gobol walba way ka samaysmi laakiin iminka intaasaa jirta waxaase ugu xoog weyn oo ugu culus oo inta badan aanu la shaqeynaa tan weligeed jirtay ee iminka de dhowr iyo 30 sanadood jirtay ee hageysa taala taana markaad aragto halkii soogi jirtay halkii iminka joogto runtii isbarbar dhigo maaha. wahagaaga su-aasha ugu dambaysa ee aan jecelahay marwaamina inaan ku weydiiyo waxa weeye kadib markii ay golaha wakiiladu ay hor joogsadeen mooshinkii ahaa in kuraasi gaar ah haweenka koota loogu xidho sidee kula muuqataa mustaqbalka siyaasadeed ee haweenweynaha guud ahaan jamhuuriyadda Somaliland? arrintaasi xaqiiqatan arrin aada iyo aada nooga xumaanay bay ahayd waad la socotaayo xisbiga kulmiye markii uu campaignka ku jiray manifestkeeday ku jirtay in dumarka iyo beelaha laga tiro badan yahay iyo dhalinyaradaba uu maxay haysay wadciga siyaasadada ku jiraan kor u qaado mathalan dhalinyarada waktigii ay siyaasada da-day ku geli lahaayeen xisbigu uu ku ballan qaado uu ka dhabeeyey baarlamaanka uu baadfareeyey kootadan dumarku waxay ahayd wax uu xisbiga iyo dawladda kulmiye aada iyo aada ugu adkayd madaxweynuhu markii xisbigu soo baxay guddiguu u saaray guddiga goboladoo dhan soo martay guddigii talooyin bay soo jeedisay kootaha dumarka la siinayo madaxweynuhu markaa wuxuu u gudbiyey baarlamaankii shuruucda dalka u taal iyo dastuurka ayay yidhaahdeen baan ogolayn in cid gooniye waayo dastuurkeenu dadka wuu sumo wuxuu rag iyo dumar haddii beelaa laga tirada iyo badan yihiin hadday xagga diinta tahay xaggay midabka tahay ummadda reer somaliland way sinantahay marka iyagu qodob sharci oo xagga dastuurka aday qabsadeen ay ku diideen madaxweynuhu 2 goor markii hore gudbiyey mooyaane mar labaadka warqad kale u qoray yidhi waxaan jeclay sharciyada dalka inoo yaala arrintaa sidii aa u waafajin kartaan inaa u waafajisaan nasiibada waxa dhacday
dejintii sharci dejintii oo baarlamaanka inay yidhaahdeen isma qabanayaan sharciga maanta inoo yaalay dastuurkeena qore iyo taasi waanu ku qancaynaa wixii dee sharciginaya anakuba ma advocate garaynayno oo malihin sharciga hala teliyo laakiin haweenka Soomaaliland way istaahilaan in koota la siiyo iyo in maxay ahayd wax gaar ah la siiyaba marka tani maanta hadday noo suurtagali weydo ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inay mid kale noo suurta gasho dagaalkana daynmayno wacyigelintana daynmayno tilmaaminta aanu tilmaamayno dumarku inay intay haystaan inka badan istaahilaan ay u qalmaana waxaanu jeesinayna maaha laakiin arrinta saas ay u dhacday waanaanu ka xunnay waa hagaag aad iyo aad baad u mahadsan tahay marwada koowaad ee jamhuuriyadda Somaliland marwo Aamina Waris Sheekh Maxamed Jirde oo telefoonka igu waramaysay iyadoo ku sugan qasriga madaxtooyada ee magaalada Hargeysa aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxa hadda daqiiqado yar ka hor dhamaaday dood aad loo wada sugayay oo dhex maraysay labada musharax ee ku tartamaya madaxtinimada wadankan iyo Mareykanka oo kala ah madaxweynaha hadda talada wadanka haya Barack Obama oo isagu ka soo jeeda xisbiga dimuqraadiga iyo Mitt Romney oo isagu ka socda xisbiga jamhuuriga doodaasi oo ah tii ugu horeysay oo kamid ah 3 doodood oo loo qaban doono doorashada ka hor waxaana lagu qabtay jaamacadda la yiraahdo University of Denver oo iyadu ku taala gobolka Colorado haddaba Samiir Barre oo isagu ku sugan bartaka magaalada Chicago ayaa aan marka hore weydiiyay bal muhiimadda ay leedahay doodaha noocan oo kala ah Cawaale Cabdilaahi Cawaalo waad mahadsan tahay doodan ama debate-kan caadada oo ah musharaxiinta aqalka cad ee Mareykanka u tartamaya waxa ku jirta laba faa'iido ama laba faa'iido muhiim ah ayaa ku jirta ta koobaad waxa weeyaan sida in loo wada socono barnaamijka siyaasadeed ee lagu hananayo aqalka cad ee Mareykanka waxa soo diyaariya professor aqoon-yahano iyo xubno sare ka tirsan xisbiyada u tartamaya marka tani waxa weeyaan faa'iido population-ka ka soo qayb galaya debate-kan ama millions-ka ka daawanaya TV-yada si ay u kala arkaan u kala ogaadaan musharaxiinta u tartamaya aqalka cad siday u diyaarsan yihiin ajandaha siyaasadeed ay la galayaan aqalka cad siday u soo diyaariyeen siday uga fiirsanayaan haduu eebeed maayo barnaamijkooda siyaasadeed inay ka dhaadhiciyaan codbixiyayaasha marka taas waxa loo fiirsanayaa daqiiqadaha ama ilbiriqsiyada ay kaga jawaabayaan su'aasha sida marka hadalka isku dhiibayaan ama su'aasha ayagu isweydiinayaan sidoo midba kale ugu jawaabayo body language-ka waxa loo yaqaan dhaqdhaqaaqyadooda sida ay muxuuha ay dadku u akhrinayaan taas waa faa'iido weyn oo ku jirta debate-kan in iskaga hor yimaadaan labada musharax ee u tartamaya aqalka cad ee Mareykanka haddaan u soo noqdo Cawaalo faa'iidada labaad ee ku jirta debate-kan waxa weeyaan labada xisbi waxay kala leeyihiin taageerayaal rigli ah oo la yaqaano marka debate-kan waxa ku go'aan qaata bulsho badan oo raajixin doona hadhow doorashada cidda ku soo bixi doonta kuwaas loo yaqaano undecided voters kuna go'aan qaata waxa uga baxa ama uga iftiima debate-ka dhexmara labada musharax ee u tartamaya aqalka cad ee Mareykanka Samiir doodani waxay u muuqatay mid muhiim ah oo dhammaan telefishinada qaranka oo dhan ay soo daayeen bal waxaad adigoo taariikhda dib ugu noqonaya goorma ayay bilaabantay in doodani muhiimadda la saaro oo telefishinada laga baahiyo Cawaalo telefishin ahaan waxay bilaabatay 1960kii waxaan u ahaa debate-kaasi kii dhexmaray Senator John Kennedy oo markaa senator ahaa iyo Nixon oo markaa madaxweyne ku xigeen ahaa debate aad u xiiso badan buu ahaa doorasho aad u kulul bay ahayd waxayna ka dhacday bilinka inaga dambeeyo hadda meeshan aan taaganahay aan inooga fogeyn magaalada Chicago waxayna ahayd 1960kii debate-kaas oo ahaa ka ugu hadalhaynta badan waqtigaas telefishinadana dadku aad u may daawan jirin waqtiga raadiyoga ayaa aad u badnaa taasoo sababtay inay dad badan moodeen dadka raadiyoga ka dhageysanayaan uga socdaay inuu Nixon badiyay dadka TV-guna ay moodeen inuu badiyay Kennedy taasoo sababtay Grayska iyo isqaabka uu ugu soo diyaar garoobay Kennedy waqtigaas Mr. Samiir doodan si aad ayaa maalmahan oo dhan ay warbaahintu u hadal haysay gaar ahaan waxa la hadal hayay musharaxa xisbiga jamhuuriga ee Mitt Romney kaasi oo loo cabsanayay oo warbaahinta qaar ay lahaayeen si fiican dooda uguma diyaar garoobin oo waa laga adkaan doonaa
bal guud ahaan waxa aad warbixin naga siisaa sida uu musharaxaasi uga soo qayb galay dooda. jawiga guud ahaaneed cawaalow ee doodan maanta jawi wuxuu ahaa ka duwan saadaashii maanta saakadayadii Mareykanka saxaafadda maxalliga ay qaadadhigaysay taasoo ahayd in Mitt Romney uu ka hortagayo nin qoraa ah aftahan ah 4 sanood ku sugnaa aqalka cad oo maamulayay dalkan marka waxa looga warwelsanaa sida qaabku uga hortagayo ama qaabku jawaabaha u bixinayo jawaabaha ka imanaya xagga Obama uga socdaaye taasina waxay noqotay sawir ka duwanaada si qurux badan buu uga qayb galay jawaabo fiican buu bixiyay ajendiisa siyaasadeed ee ku saabsan qaybta shaqo abuurista iyo dhaqaalaha si qurux badan buu u soo bandhigay taasina waxay ahayd mid aad iyo aad uga duwan jawi aad u fiican oo ku dhacay iyadoo saxaafaddu iyaduna ay xusaysay inuu bishii ugu dambeysay isku soo diyaarinayay debate-kan. waa hagaag Samiir, waxyaabaha ugu waaweyn ee maanta la weydiinaya waxaa ka mid ahaa shaqo abuurista iyo dhaqaalaha. bal waxaad noo sheegtaa halka ay kala taagnaayeen labada musharax. haddaan ku horeeyo musharaxa Romney waxa uu dhaliilay shaqo la'aanta saameysay dalka Mareykanka oo lagu qiyaaso 8% maciishada oo kor u kacday shidaalka oo isaguna qiimihiisu si aad kor ugu kacay waxa kale oo carabka ku dhuftay musharax Romney in programka loo yaqaano Obamacare ee caafimaadka la baasgareeyay haddii uu hirgalo uu sii laabi doono shaqo la'aanta ka jirta dalkan Mareykanka. aan u soo noqdo madaxweyne Obama waxa uu sheegay isna dhankiisa in uu la wareegay xilka aqalka cad ee Mareykanka isagoo oo wadanku uu musallifay deyn badan lagu leeyahay shaqo la'aan badan saameysay isna uu qabtay waa sidoo sheegay in uu kor u qaaday dhaqaalihii dhiirigeliyay shirkadaha gaar ahaan sida uu sheegay shirkadda baabuurta oo baananka oo aad u caawiyay waxa kale oo Obama carabka ku dhuftay in uu kor u qaaday tacliinta isagoo tusaale u soo qaatay mar uu booqday duleedka magaalada Las Vegas iskuul ku yaala oo uu arkay in 42 arday ay dhex fadhiyeen galaas kaliya in uu shaqaaleysiiyay macallimiin badan oo u badan kuwa dhiga maadooyinka sayniska iyo xisaabta arrimahaas oo dhan ayuu soo qaatay Obamana dhankiisa inuu wax ka qabtay. dhinaca kalena waxa ay ka hadleen labada musharax dhimista kharashka dawladda dhexe ee dalkan Mareykanka iyadoo xisbiga jamhuuriga iyo Romney ay sheegayaan in la dhimo kharashka dawladda dhexe ugu yaraan 5 trilyan laguna daro ugu yaraan 2 trilyan ciidanka. xagga madaxweyne Obama dhankiisana uu sheegay inuu soo diyaariyay qorshe lagu dhimayo kharashka dawladda isla markaana aan lagu dareen wax kharash oo dheeriya ciidanka. Mr. Samiir, qodobada ugu waaweyn ee labada musharax ay isku maandaafsan yihiin waxaa ka mid ah cashuur dhimis loo sameynayo dabaqadaha kala duwan ee uu ka kooban yahay mujtamaca wadankani Mareykanka. balaarinkaasi faahfaahin naga sii. qodobka cashuurta ku saabsan waa qodobka ugu muhiimsan ee la isla mari laayahay kaas oo lagu kala aragti duwan yahay madaxweyne Obama iyo musharax Romney ay ku kala aragti duwan yihiin. waxa uu arkaa musharax Romney in laga dhimo cashuurta dabaqada sare ee samaysa in ka badan milyan oo loo sameeyo cashuur dhimis. xagga madaxweyne Obamana uu ku dooday in laga dhimo cashuurta dabaqada hoose ee dabaqada dhexe ee dalkan Mareykanka ee samaysa in ka yar $1 milyan sanadkii taasoo ah dabaqada ugu badan ee dalkan Mareykanka ah loo yaqaan middle class-ka waxayna u taalaa kala doorashada ama sida ay u kala arkaan shacabka Mareykanku cid ay dooran lahaayeen. haddaan dhanka kale soo noqdo dibeedyada waxa harsan ama doodaha laba doodood kala harsan oo lagu qaada dhigi doono siyaasadda arrimaha dibadda iyo security-gaba. waa hagaag aad iyo aad baad u mahadsan tahay. kaasina wuxuu ahaa Samiir Barre awgaab oo isagu ku sugan bartaka magaaladaasi Chicago ee gobolka Illinois. wararka hadda soo dhacayeen xaggan kaarkeena waxa ay sheegayaan in ra'yi ururinta dadka laga qaaday dooda oo hadda goor dhaweed dhamaatay sheegayso in musharaxa xisbiga jamhuuriga Mitt Romney uu doodaasi si lama filaana ugu guuleystay. waa hagaag daawadayaal, weli waxaan ku guda jirnaa arrimihii Mareykanka ee sanadkan. waa sanad doorasho isla markaana waxaa la saadaalinayaa inay Mareykanka ka dhacdo tartankii ugu xamaasada badnaa ee taariikhda dhow soo mara wadankani Mareykanka. xafiiltanka labada xisbi u dhaxeeya ayaa gaaray meeshii ugu sareysay. haddaba muufiyada ama
filimada Hollywood oo Mareykanka iyo caalamkaba aad looga jecel yahay ayaa bilihii ugu dambeeyay waxaa soo baxayay in muufiyada qaarkood oo ka hadlaya dhinaca siyaasadda ay cabasho ka keeneen labada xisbi ee wadankani ugu waaweyn ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga. bishii hore ayaa xisbiga jamhuurigu cabasho xoog leh ka muujiyay filim laga sameeyay dilkii hogaamiyihii Al-Qaacida ee Osama bin Laden oo ciidamada gaarka ah ee loo yaqaano Navy SEALs ay ku dileen wadanka Pakistan. xisbiga jamhuurigu waxa uu madaxweyne Barack Obama ku eedeeyay in uu macluumaad sir ah oo ku saabsan dilka Osama bin Laden uu siiyay ninka filimkaasi sameeyay. sidaa darteedna uu filimkani yahay mid dacaayad u sameynaya oo madaxweynaha buunbuuninaya. xisbiga jamhuurigu waxa uu cabasho u gudbiyay soo saaraha filimkaasi oo ka codsaday in dib loo dhigo waqtiga filimku soo baxayo oo loogu talagalay inuu soo baxo doorashada ka hor. xisbiga jamhuurigu markii uu cadaadis badan saaray soo saaraha filimkaasi ayaa waxa uu soo saaraha filimkaasi go'aansaday in dib loo dhigo waqtiga filimkaasi uu soo baxayo oo dib loogu dhigay bisha Disembar 19keeda. arrinkaasi oo ka cadhaysiiyay dadka filimaanta jecel. dhinacoogana xisbiga madaxweyne Obama ee dimuqraadiga ayaa isha ku hayay oo baadhayay fariinta uu xambaarsan yahay filim cusub oo bishani 12keeda soo bixi doona oo la yiraahdo Argo oo uu jilayo jilaaga weyn ee la yiraahdo Ben Affleck. filimkani waxa uu ka hadlayaa dhacdo caan ah oo ka dhacday wadanka Iran 1979 wax yar kadib markii wadankaasi ka dhashay kacaankii Islaamiga ahaa. dhacdadaasi oo lagu weeraray safaaradda Mareykanka oo ay ku lahaayeen magaalada Tehran ee wadanka Iran. dhacdadaasi waxaa lagu afduubay dad badan oo Mareykan ah oo safaaradda Mareykanka waqtigaasi ku sugnaa. dhacdadaasi waxaa la aaminsan yahay in ay ahayd sababta ugu weyn ee madaxweynihii waqtigaasi ee wadanka Mareykanka oo la odhanayay Jimmy Carter uu doorashada ku waayay sanadkii 1980 kaasi oo lagu eedeeyay in uu si jilicsan uga jawaabay dhacdadaasi. arrinka kale ee xiisaha leh waxa weeyaan in filimkani waxa uu ku soo beegmay waqti uu xukunka hayo madaxweyne dimuqraadi ah isla markaana weerar lagu qaaday safaarad uu Mareykanku ku leeyahay wadanka Liibiya oo ah wadan muslina oo isbedel uu ka dhacay. mas-uuliyiinta xisbiga dimuqraadiga ayaa go'aansaday in ayna cabasho u gudbin soo saaraha filimka waxaana ay hoos u dhigeen saameynta uu doorashada ku yeelan karo. hase yeeshee dowladda wadanka Canada ayaa cabasho iyaduna ka muujisay filimkaasi kaasi oo ay ku eedeysay in uu hoos u dhigay doorka ay safaaradda Canada ee Iran waqtigaasi ay ka qaadatay in la soo daayo dadkii madax furashada safaaradda Mareykanka loogu haystay. cabashadaasi wadanka Canada waxay soo baxday mar filimkaasi lagu bandhigay xarun lagu qiimeeyo filimada oo ku taala magaalada Toronto ee wadanka Canada. xaruntaasi oo la yiraahdo Toronto International Film Festival. si kastaba ahaatee waxa ay dimuqraadigu sheegeen in uuna wax haba yaraatee wax saameyn ku yeelan doonin filimkuna uu soo bixiyo waqtigii ay soo saarayaashu ugu talagaleen oo noqon doona bishani aynu ku jirno 12keeda. kadib geeridii ku timiday Allah u naxariistay Abwaan Gaari oo ahaa abwaaniinta ugu caansan Soomaalida ayaa waxa soo baxaya su'aalo ay dadku isweydiinayaan oo isa soo taraya oo ah in abwaaniinta imiko ay buuxin karaan kaalintii ay baneeyeen abwaaniintii hore oo lagu tilmaami jiray in ay ahaayeen jiil dahabiya. su'aashaasi waxa aan weydiiyay mid kamida abwaanada waqtigan ugu caansan oo la yiraahdo Yuusuf Shaacir isaga oo ku sugan magaalada Hargeysa oo khadka telefoonka si toos ah ugu jira. horta su'aashu waxaan ku keenaynaa geerida Allah u naxariisto Gaariye oo tacsiireynaya midkana ma hadalnay fursad ay siiseen haddii aynu geerida marka aan la eegin ragga kale xataa la lodka ahina waa iska hawlgabinka oo way shaqadaasi way banaanta wax iska daalan. su-aasha haddaan soo noqdo waxa weeye jawaabtu
waxay noqon kartaa ha iyo maya labadaba waa la odhan karaa waayo raggan imika lodkaasi iyaga laftooda lod horey ka dhaxleen jagada oo rag horaa baneeyey oo kontonaadkii raggii qaasim iyo tima cadde iyo cali xuseen iyo ragga xajaadan iyo raggaasaa baneeyey raggaasina rag horey sii dhaxleen oo raggii salaan iyo cali dhuux iyo qabaan iyo faarax nuur iyo cali jaaxawiil iyo sayid maxamed abdulxasan iyaguna raggaasaa sii baneeyey marba groupba rag baa imanayay oo waktiga iyo duruufaha banaynaya jagada oo raggii ama waa gaboobaya ama waa dhimanayaa dabeetna meesha way banaanaanaysaa laakiin mar walba ragga imanaya xilli ka duwan raggii ka horreeyey bay la kulmayaan lodkii ugu horreeyey iminka qabaan iyo salaan iyo calidhuux groupkaas 1900 qarnigan dhamaaday bilowgiisii meelahaasay joogeen groupkii ka dambeeyey wadaniyad bay la kulmeen kontonaadkii tima cabdiyaal ahaa iyo qaasim iyo cali xuseen misaan sheegay wadaniyad bay la kulmeen groupkan ka dambeeyey imika gaariye hadraawi cabdiqays xasan ganay raggaasi iyaguna waxay la kulmeen xoogooda intii kacaankii iyo dowladihii sibilka ahaa aakhirkoodii lod waliba ama tiam waliba xilli ayuu xilligiisu lahaa marka waxaa la odhan karaa hal abuurkii waa la helayaa erayada mar walba waa la helaya xigmaddu ma dhamaato xilli kastoo la joogo rag xigmad leh oo erayo waxtar leh ummadda usoo kordhiya waa la helayaa laakiin waxaa kala duwan waxa weeye waktiga laftiisa 70-kii dee maanta raggii joogay iyo riwaayadihii iyo heesihii iyo sidii loo dhegeysanayay iyo sidii dadku u rogrogayay sidii loo sharxayay sidii dadku ula baxayay maanta maaha waayo 70-kii waxaa kuleel haystay wax laga yaaba inuu ahaa record iyo cajilad la dhegeysto tv ma jirin ma jirin internet ma jirin mobiladan iyo waxana ma jirin waxaa laga yaabaa in cajilada la dhegeysanay un ahayd marka xilliyadii baa isbedelaya oo xilli waliba wuxuu la imanayaa hawshiisa iyo culayskiisa marka la helayaa hal abuurkii laakiin waxaan la helaynin xilligii iyo dadkii dhegeysanayay ee rogrogayay ee ereyga macnaha u yeelayay ee heesta ama gabayga ama riwaayadda wuxuu abwaanku uga jeedo isweydiinayay ee dabeetana abwaanka su-aalaha weydiinayay yani waa la wada socday berigii hore hal abuurka iyo dadka laakiin su-aashu waxay tahay hadda abwaaniinta jirtay ma samayn karaan gabayo iyo heeso u awood badan sidii ay kuwii hore u samayn jireen de waa soo maray waxaan ku yihi waan samayn karaa oo anigan sheegay xigmaddu ma dhamaato inta la nool yahay maalin walba rag xigmad lehi way jiraan waana joogaan waan samayn karaa heeskii 70-kii lagu heesayay mid lamida waan samayn karaa khayrkiina waa samayn karaa ragga xilligan jooga waan ogahay riwaayadiina waa la samayn karaa laakiin waxa isweydiinta leh waxa weeye heesta maanta anigu waan sameeyaa tii 70-kii ma gaadhayso gaadhistuna waxa weeye xagga erayada maaha leanna maxaa yeelay hadraawi ama gaariye groupkan marka maanta ay joogaan oo eegno groupkii aynu soo sheegnay bilowgiina cabdulla xasan iyo cabdigahayr iyo raggaa lahaa dee xilligii iyago xilligoodii ma noola oo haddii xikmaddu xilli leedahay xilligaasoo qoray dhammaan lahayd oo raggan maanta jooga lama dhegeysteen haddii ay bilaa xikmad yihiin marka xilli walba raggiisa iyo xikmadiisa waa la helayaa laakiin waxa aan la helaynin waxa weeye cajiibka ahi waa waktiga iyo bulshada ayaa mar walba kala duwan marka bulshadii 50-kii noolayd ama 60-kii noolayd ee riwaayaddu markay riwaayaddu soo baxdo ama heestu iyagu dhegeysanaya isu dhiibdhiibaya faafinayay dee maanta anigu bulshadan soo gaadhay ma aha marka waxaad leedahay abwaaniintu waxa iyo midhihii sidii buu u jiraa laakiin duruufihii
iyo waqtiyadii adkaa ay ku sameynayeen ayaa kala duwan baad leedahay soo maha iyo kala duwan oo anugu gabayga maanta tiriya wax laga yaaba kuma soo gaaraya adiga anigaba inaanu dhaafin baa laga yaabaa idiga hoos qaadin halka ciladu ka jirta waxa weeye had iyo jeer dadku waxay yidhaahdaan waxaan imika la talinaya naf ma laho oo hadal waa intii hore oo waxaasay yidhahdaan laakin taasi sax maaha waayo kontonkii heesta la tirinaya walaala Hargeysa ay qaadayeen iyo waa beri heestii qaadayeen labadaba way faafeen waa beri waxay ahayd 7 kacaankii baa la sameeyey iyaa la sameeyey waa berina walaala Hargeysana dhowr iyo kontonkii baa la sameeyey 20 sanadood ama dhowr 20 sanadood baa udhexeeyey labada kooxoodba caan bay noqdeen heesahoodii riwaayadahoodaba caan bay ahaayeen laakiin maanta kooxda la sameeyaa ama wada waqti maanta koox caan ma jirto Soomaaliya ama qurbaaba dadka Soomaaliya ku hadla koox caan ah marka ciladu waxa weeye maaha hal abuurka maaha waxa weeye xilliga iyo duruufaha jira ayaan dadku maanta xiisa u qabin inay suugaantii faafiyaan ama suugaanta calankeedii baan taagnayn marka haddaan hees xigmad la sameeyo iyo haddaan mid xigmad ahayn sameeyo waxa laga yaabaa inay maanta dheeraysato aan xigmad lahayn laana maxay yeelay dadkii wax dhageysanaya baa xigmad beelay maaha inaan anigu xigmad beelay dadkii wax dhageysanaya baa xigmad beelay dabeetana way isugu mid aan xigmad lahayn iyo xigmad leh waxa bay sii jecel yihiin tabla xigmadda okay waay aad baad u mahadsan tahay kaasina daawadayaal wuxuu ahaa abwaanka caanka Yuusuf Shaacir oo si toos ah ugu waramay isagoo ku sugan magaalada Hargeysa aad iyo aad baad u mahadsan tahay waaga toddobaadadii ugu dambeeyay waxaa dunida caalamka ka jiray rabshado ka dhashay filin lagu aflagaadeeyay nabigeena suuban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee haddaba toddobaadkii dhaweyd kulan ay iskugu yimaadeen madaxda caalamka oo ka dhacay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa waxaa khudbad ka jeediyay madaxweyne Obama oo khudbadiisa aad loo sugayay khudbadaasi waxaa aad u daneynayay laba dhinac xisbiga dimuqraadiga xisbiga jamhuuriga oo isagu musharaxa ka soo jeeda Mitt Romney oo kula tartamaya aqalka cad ayaa iyagu aad u daneynayay khudbadaasi waxa uu madaxweynuhu ka jeedin doono isla markaana waxay filayeen inuu tallaabo adag ka qaadi doono dhinaca arrimaha dibadda gaar ahaan weerarkii lagula kacay ee lagu dilay safiirkii dalka Mareykanka u fadhiyay magaalada Benghazi ee wadankaasi Liibiya dhinaca kalena khudbadaasi waxaa sugayay dadyoga muslimiinta ee wadankani Mareykanka iyo caalamkaba ku nool oo filayay in uu madaxweynuhu raaligelin buuxda ka bixiyo isla markaana uu amro shirkadaha internetka ee YouTube-ka iyo Google-kaba in ay ka saaraan filimkaasi muslimiinta aad u waxyeeleeyay haddaba waxaan jeclaysanay in aan inii soo tabino nuxurka khudbadaasi watan Safiya Cali Yusuf oo magaalada Hargeysa ku sugan oo khudbadaasi inoo soo diyaarisay madaxweyne Obama khudbada uu toddobaadkan ka jeediyay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa ahayd mid aad loo sugayay kadib rabshado badan oo ka socday dunida muslimka oo ka dhalatay filim lagu aflagaadeeyay Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee iyadoo ay jirtay cadaadis kaga imanaya ninka kula tartamaya aqalka cad ee wadankaasi looga arrimiyo Mitt Romney waxa uu madaxweynaha ku eedeeyay in uu si jilicsan uga jawaabay weerarkii lagu dilay safiirka wadanka Mareykanka u fadhiyay dalka Liibiya khudbadan hadal uu ka jeediyay ayuu madaxweynuhu si taxadir ku jiro uga hadlay laakiin dadka ka faallooda siyaasadda wadanka Mareykanka ayaa cadeeyay in khudbadii Obama ay ahayd mid aan haba yaraatee raali gelin labada dhinac ee khudbadiisa sida aadka ah u daneynayay waa muslimiinta caalamka iyo xisbiga jamhuuriga madaxweynuhu waxa uu khudbadiisa inta hore ku dheeraaday ammaan uu u jeediyay safiirkii Liibiya u fadhiyay wadanka Mareykanka Chris Stephen oo ku dhintay weerar lagu qaaday safaaradda Mareykanka uu ku lahaa magaalada Benghazi ee wadanka Liibiya weerarkaasi oo ay qaadeen dad sheegtay in ay ka cadhoodeen filim aflagaado u geystay Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee madaxweyne Obama waxa uu ka sheekiyay taariikh nololeedkii safiirka oo uu ku tilmaamay mid saaxiib dawla ah wadamada Carabta isla markaana gudbiyay sawirka dhabta ah ee wadanka Mareykanka waxa uu dhintay isaga oo hawshiisa gudanaya waxaanu ahaa ayuu yiri nin aad u naxariis badan waa ninkii Liibiya ka caawiyay in meesha laga saaro hogaamiyahoodii dhiigyacabka ahaa ee dadkiisa gumaadayay
waxa uu ammaanay dowladda liibiya shacabkeeda uu sheegay in ay isbarbar taageen waddanka Maraykanka muujiyeyna sida ay uga xun yihiin dhacdadaasi. Madaxweyne Obama waxa uu sheegay in ay raadsan doonaan kuwa falkaasi geystay oo ay cadaaladda horkeeni doonaan. Madaxweyne Obama waxa kale uu caddeeyey in kuwa dilkaasi geystay ay yihiin kuwa raba in ay ummadaha xumaan kala dhex dhigaan. The attacks of the last 2 weeks are not simply an assault on America. weerarkii labadii toddobaad ee ugu dambeeyey ma ahayn oo keliya weerar lagu qaaday Ameerika, ee waxa uu ahaa weerar lagu qaaday mid ka mid ah mabaadi'da ay Jamciyadda Quruumaha ka dhaxaysa ku taagan tahay. Wadahadalka ayaa bedeli kara dagaalka iyo gacanka hadalka. Khilaafkana waxa lagu dhamayn karaa isafgarad. Laakiin waa inaynu daacad ka noqonnaa arrinkaasi, waayo waxa aynu hor yaalla inaynu kala dooranno xoogaga xumaanta wada ee raba in ayna kala geeyaan ama rajada iyo niyad wanaagga isku keen haya. Maanta waa inaynu dib u xaqiijinnaa in mustaqbalka wanaagsani uu ku xidhan yahay dadka fiican ee sida Chris Stephen oo kale ee ayna ku xidhnayn kuwii isaga dilay. Sidoo kale waa inaynu caddayno in rabshadahaasi iyo qulqulatooyinkaasi ayna meeli uga bannaanayn ummadaha ku midoobay Jamciyadda Quruumaha ka dhaxaysa. Madaxweyne Obama waxa kale oo uu sheegay in dowladdiisu ay taageertay dabayshii isbedel doonka ahayd ee ka bilaabantay wadamada Carabta. Waxaanu isbarbar taagnay ayaa uu yidhi shucuubta wadamada Tunisia, Masar iyo Yemen. Waxa kale oo aan faragelin militari ku samaynay waddanka Liibiya. Faragelintaasi waxay ummadda ka badbaadisay xasuuq ay u geystaan ciidamadoodu, waxayna ka caawisay in ay dadka Liibiya ay xorriyad helaan 40 sano kadib oo xukun keligii talisa. Haddana waxaanu ku dadaalaynaa sidii aynu u soo faragelin lahayn xukunka Bashar al-Assad iyo xukuumaddiisa arxanka daran. Madaxweyne Obama waxa kale oo uu ka hadlay waddanka Iiraan oo uu ku tilmaamay in uu halis ku yahay guud ahaan amniga mandiqada Bariga Dhexe iyo caalamka. Isagoo ka hadlayana waxa uu yidhi Iiraan waxay isku dayaysaa in ay meesha ka saarto dowladda Israel oo ay maabka ka tirtirto. Waxa kale oo ay halis ku haysaa nabadgelyada wadamada Khaliijka. Waxa ay si indhala'aana u taageeraysaa nidaamka keligii taliska ah ee ka dhisan waddanka Suuriya. Waxay dhiirigelinaysaa tartan dhinaca hubka nukliyeerka ah. Waxa kale oo ay halis ku haysaa habsami socodka dhaqaalaha caalamka. Sidaa daraaddeed ayay wadamada isbaahaysta ee xayiraad u saareen dhaqaalaha waddankaasi. Dowladda Maraykanku waxa ay isku dayi doontaa inay qaado tallaabo kasta oo karaankeeda ah oo Iiraan lagaga hor joogsanayo in uu gacanta u galo hubka waxkumaada ee nukliyeerka. Madaxweyne Obama waxa uu gudagalay inuu si faahfaahsan uga hadlo filimkii lagu aflagaadeeyey Nabi Maxamed, nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Waxaana uu ku tilmaamay inuu ahaa mid aad u xun oo anshaxa ka baxsan. Waxa uu yidhi waxaan caddaynayaa filimkaasi ma ahayn mid cay ku ah muslimiinta oo keliya, ee waa mid cay iyo ceeb ku ah waddanka Maraykanka iyo guud ahaan bini'aadamka oo dhan. Dowladda Maraykankuna waxba kama qaban karto ayaa uu yidhi. Maraykanku waxa uu hoy u yahay malaayiin muslimiin ah oo si xorriyada ugu cibaadaysta dhammaan daafaha Maraykanka. Nafteenna ayaan u hurnaa in aanu difaacno xorriyadda diimaha. Maruu ka hadlayay sababta ay dowladda Maraykanku u mamnuuci weyday filimkaasi, waxa uu yidhi Some who ask, why don't we just ban such a video? And the answer is enshrined in our laws. Our Constitution protects the right to practice free speech. Dad badan ayaa isweydiinaya sababta aanu u mamnuuci weynay filimkaasi. Jawaabtu waxay ku caddahay sharcigayaga. Dastuurkeenu waxa uu damaanad qaadayaa xaqa uu qof waliba u leeyahay xorriyatul qowlka. Waxaa jira xumaan iyo meel ka dhacyo badan oo laga faafiyo diinta Masiixiga, oo ay dad badan oo Masiixiyiin aad uga xumaadaan oo anigu ka mid ahay. Waana dadka ugu badan waddankani. Aniga oo ah madaxweynaha waddanka, ahna abaanduulaha sare ee ciidamada qalabka sida, haddana waan aqbalaa dadka maalin walba xumaanta iga faafinaya. Weliba mar walbana waan difaacaa xaqa ay u leeyihiin
in ay sidaasi sameeyaan. Will always defend their right to do so. Americans have fought and died around the globe. Maraykanku way u dagaalameen wayna u dhinteen difaaca dadyowga caalamka ee raba in ay ra'yigooda si xor ah u cabiraan. Xataa haddii fikirka dadkaasi aynu difaacayni uu yahay mid ka hor imanaya fikirkaan anagu aaminsannahay. madaxweyne Obama waxa kale oo uu tibaaxay inaanay jirin kelmad ama fiidiyo la qiimo ah nafta bini'aadamka. kuwa muslimka ah ee Ameerika xumaanta ka faafinaya kama turjumayaan muslimiinta intooda badan. sidoo kale kuwa filimka ka sameeyay kama turjumayaan inta badan ee masiixiyiinta ah. madaxweyne Obama waxa uu ugu baaqay dadka muslimiinta ee ka damqaday aflagaadadii nebiga loo geystay in sidoo kale ay ka dhiidhiyaan marka meelka dhac loo geysto diimaha kale. kuwa ka xumaaday aflagaadada loo geystay Nebi Maxamed waa in ay iyaguna sidoo kale dhaleeceeyaan meelka dhacyada loo geysto sawirada Nebi Ciise, kaniisadaha la burburinayo iyo dafiraadda had iyo jeer la dafiro xasuuqii Holocaust ee Yuhuudda loo geystay. waa in sidoo kale ay cambaareeyaan meelka dhacyada loo geysto muslimiinta suufiyada iyo muslimiinta shiicadaba. waa hagaaga daawadayaal, waxaa intaasi inoogu dhammaaday barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee dhacda koob. waxa ay nila socodsiinaya anigoo ah Cawaale Cabdilaahi Cawaale. intaan toddobaadka dambe dib ugu kulmi doono waxaan igaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.